kulanti waxaan oo wanaagsan ku soo dhawaada janaalkeena wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarihii xalay la ciyaaray kuwa caawa la filayo Soomaaliya oo weli la hadalhayo gooldaradii ka soo gaartay Ghana sidoo kale wax walba oo u baahan yihiin wax walba ugu baahantiin ciyaar caawa la filayo dhacdooyinkii Mbembe waxa loo cadareeyay kuna dhawaaday rikoodhka ah xidiga ugu goolasha badan Faransa sidoo kale qadka dhax ugu fiican haatan waxa haysta leeyahay xulka qaranka Spain yaaba saddex xidig ee markaan la leeyahay Kaneer Gattuso oo guushi ugu horeysay ka gaaray dhigiisa unug soo hoyay naadi kubadda cagta Italy sidoo kale waxaa leeyahay Faransa guusheedii xoog badan ayaa dheelay inaba caadi ma waxaa la arkayay nimankii Yowers Isaska ah oo caawin isku jawaabeen inaba caadi maan afka hore Faransa waxaa leeyahay waa da'yaro عجائب سنة soo socdana saaxada kubadda cagta qabsan doona waa arki doona meesha ku dhamaa ninkii Astowana ahaa oo saameyntii Lionel Messi iyo bandhigii kulankii macsalaameynta ahaa dhahay waxay ahayd reer gooni ah inaba caadi maan sidoo kale waxaa leeyahay Kroos Modric iyo ninkii Casemiro ah oo ku imaad qiimo lacageed ka yar 100 milyan inaba caadi maan waana ku qabsaday saaxada kubadda cagta ninkii dambeela ahaa oo xalay garoonka ka baxay miyuu dhaawacmay mise ku soo dhawaada janaalka ku cusub fadlan subscribe ma sar like dhisin share gare waa karimaad ilaa daawashan muuqaal waxaan ku bilaabi doonaa waana boobsi doonaa insha Allah hadduu muuqaal ku soo gaaro fadlan like ta ka iloomin like noo saar si uu gaaro asxaab badan oo jecel inay maqlaan xogii ugu dambeeyay sportska ciyaaraha la filaa caaw iyo kuwa la ciyaaraba xalay toole isla reebka weli waxaa socdo Afrika oo loo soo baxay tartanka CAF qaarkoodana waxa waaye soo bixista World Cup ay u tartamayaan inaba caadi maan waxaa leeyahay xogkii Soomaaliya waa ogeen garaacitaankeedii sidoo kale Uganda Afrika ku adkaatay Malawi waa adkaatay sidoo kale South Africa 3 ku adkaatay inaba caadi maahan ninkii Senegal ahaana waa ay badiyeen saarkii naadi kubadda cagta Tottenham ayaa gool dhaliyay Egypt 2 ku badisay gool ka mid ah Mohamed Salah ayaa dhaliyay kubadda rigoore ahayd sidoo kale Umar Mamush ayaa gool u dhaliyay halka Djibouti 5 gool waxba loo adkaaday Burkina Faso garaacday inaba caadi maahan ciyaar xiiso leh ayaa ka dhacay sidoo kale marka eegno tartanka World Cup soo bixistiisa xulka qaaradda Yurub ciyaareen Sweden iyo Slovenia bareejo 2-2 ay galeen waa kulan ay isku jawaabeen ay leeyahay caawino nimankii Yogers iyo Saska ahaa ee u tartamayay tartanka naadi kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United weeraryahanadooda marka Switzerland 4 gool waxba ay ku adkaadeen halka Scotland iyo Denmark bareejo ever isla dhaafayeen Gariga oo Belarus 5 gool ka kacisay sidoo kale Iceland oo iyadana 5 gool iyo waxba ku adkaatay halka Italy iyo Kaneer Gattuso 5 gool waxba ay ku adkaadeen 5 gool xataa waxaa leeyahay inaba caadi maan 4 ciyaareen kala duwan ayaa u dhaliyeen marka kiina u jeeday Raspadori Bastweni ciyaartoy badan marka Kaneer Gattuso wuxuu ku furtay gool 5 gool waxba ninkii Donnarumma ahaa ayaa loo jeeday marka inaba caadi maan Tonali naftarkiisa Barella Musakin ciyaartoy badan joogeen xitaa xidigii daafac bidix ee weerarka u leeyahay naadi kubadda cagta Arsenal oo waxa la arkay daafac dhex ka dheelay Calafiori xidiga ay dhaayeen marka Ukraine iyo Faransa ciyaareen Faransa 2 gool waxba ku adkaatay 2 gool waxay ka kaleen Olise iyo kale Mbembe inaba caadi maahan sidoo kale Israa'iil 4 ku adkaatay Croatia 1 ku adkaatay inaba caadi maahan wax walba markaan waxay noqdeen maanta yaa dheeli doono waxaa leeyahay Portugal maanta ciyaari doonto sidoo kale Hungary iyo waxa ciyaari doonaan Ireland sidoo kale Cyprus Austria halka San Marino ciyaari doonto iyo Bosnia sidoo kale Ingiriiska la filaa Serbia la filaa xoog badan dheeli doonaan maanta marka waa arki doonaa waxay ku soo dhamaadaan inkana kulamo saaxiibtinimo iska jiraan hayaacdo ma fahantiin marka xulkeenan wuxuu ciyaari doonaa maalinta Isniinta 8 bisha marka inaba caadi maan kulanka ugu dambeeyo ayaa leeyahay kulamada bishan la ciyaari lahaa marka wax walba markaan waxay noqdeen kulamadii la ciyaaray iyo kuwii waa kuwaya waxaa la hadalhayaa weli xulka qaranka Soomaaliya
guuldaradii soo gaartay waxay ku darsadeen gool waxaa jirtay oo gooshii labaad ahayd ee iska dhaleen xidigaha xulka qaranka Soomaaliya. marka waxaa leeyahay magac ciqaab in loo qoro la waayey Soomaaliya Afrika ayaa leeyahay waa Faysal bin Cabdi Abubakar bin Cusmaan Cumar والله بالله وريكين يا فيصل ابن عمر أبو بكر بن عثمان أي دهنو مكاسا حرفي لو كلا تتحي عمر كبس سوقاتين اللي احنا أفر دقيقة إنه أنقول إسكدري مركوا علي بين صومالي عادي مان صوماليا waxaa leeyahay ninkii Olise ahaa 5 kulan oo ciyaaray seasonkan 5 gool ayuu dhaliyay inaba caadi maan. sidoo kale ninkii Olivier ahaa Kylian Mbappe ayaa ku dhow inuu noqdo xidiga ugu gool dhalinta badan xulka qaranka Faransiiska asigoo markaan u jirsaday 6 gool kaliya. Olivier Giroud oo hogaamiyaha ah kontii 7 gool ayuu leeyahay Olivier Giroud halka kontii 1 gool oo leeyahay Henry isla kontii 1 ayuu leeyahay Kylian Mbappe 44 Griezmann ku soo xigo marka Platini waxa soo tagayeen maxaa ka hadleen. sidoo kale ninkii Mbappe ahaa marka wacdaraas ayuu dhigay waxaa leeyahay 137 kulan ayuu ku dhaliyay 57 gool ninkii Olivier Giroud ahaa halka kontii 1 gool oo ku dhaliyay 123 ciyaar Henry ninkan 91 gool ayuu ku dhaliyay 51 gool 91 kulan ayuu ku dhaliyay 51 gool. Kylian Mbappe marka waa saxoonta doosha. ninkii Ousmane Dembele ahaa oo dhaawac ku seegay ciyaartii uu baxay dhaawac uu baxay marka ninkan dar ala loo haystaa PSG oo ku ogeen inuu dhaawac ku baxay kulamadii u dambeeyay ma aqaan Faransa qaabkay u dheelsiiyeen laakiin kulankan waa u baxay leeyahay. ninkii De Jong ayaa asin tababarkii wax ku soo gaareen physicality ayaa leeyahay arrimo jir awgeed waa uu ka baxasin Barcelona u laabtay u badan tahay oo meelaas caafimaad iyo wax ku maro saddexdii intaan saddexdaas galin waxaa la hadalhayaa xidigo aad iyo aad u badan. ninkii Olise ahaa waxaa leeyahay kulankii xalay toole xidig garoonka loo doortay 1 gool oo dhaliyay 88 baas saxan ayuu sameeyay 3 jaan soo abuuray 3 baas oo wuxuu sameeyay xidig saddexaad ee ugu dambeeyay Benoni soo taabtay. sidoo kale wax badan uu sameeyay 3 jeer oo Benoni ku dhex taabtay ayaa leeyahay saaxada dishootaha ama box ayaa leeyahay marka inaba caadi maahan. weerarka dabka ah xulka qaranka Faransiiska Mbappe Doué Olise iyo Barcola oo xidigo badan ay maqan yihiin xataa Griezmann ku jirin Dembele ku jirin ciyaartooy badan ka maqan haddana saasay tahay dab iyo holac way ayaa leeyahay marka wax walba waxay noqdeen naar. sidoo kale waxyaalo badan jiro oo la hadalha sidoo kale wili waxaa la hadalhayaa xidigii Mastuwana ahaa oo soo jeedin cajaa'ib la sameeyay qeyrooday yiri waa ri mar ku riyoonayay inaa mar un la garoon la galo Lionel Messi oo ani ku daydo wuxuu leeyahay Real Madrid marka jooga xataa waa ku riyo jire laakiin asir Real Madrid ma imaanaye intee ku arki kartaa marka dadaal sameeyo dhahay si aan xulka ugu ciyaaro waa kanaana wuxuu u ciyaaray kulan xamaasadiisa wate kulan ahaa مع سلامين إنه عادي ما مرك مستوانا كلن كي مع سلامينتا بالذهب أي نورشيس كجشة وحليه كلن كاس لحني 6 دقيقة أيو عياره سديتني لح بس بقول كي بس يسوى أو صحنا 6 باس أيو سميه أو حدق أو 6 قف أو متك أو ضمبيه إنه عادي مان wuxuu sameeyay 6 jeer oo banooniyaasha dheer sameeyay 5 kamid waa uu saxay 2 oo wuxuu sameeyay inaba caadi ma ninkaan tackle hal kamid uu ku guuleystay kubadaha soo kabsashada leena 2 kubad ayuu sameeyay oo dhumay oo soo celiyay inaba caadi ma marka Mastuwana asigana ninkaas dab iyo holac waay ayaa leeyahay marka idinka leeyahay isku diyaariya World Cup oo Lionel Messi kiisi ugu dambeeyay wax walbana laga filan karo ciyaartooyda waa ay jabi karaan marna waa ay u jabi karaan Lionel Messi haluu tashto soo wada bax ayaa leeyahay
marka sidoo kale wararka aad iyo aad ay isku soo tartarayaan nimankii ahaa Luka Modric, Casemiro iyo Toni Kroos ayaa waxaa leeyahay 65 milyan ay ugu fadhiyaan naadiga kubadda cagta Real Madrid. waa dadkii waalay ugu yaraan 4 Champions League qaaday, 3 kamid ah xiriir ahaayeen, nin walbana 5 koob haysto. marka kuwan magaalada soo qaseen 65 milyan bisa ku fadhiyeen ayaa leeyahay ee ku imaadeen naadiga kubadda cagta Real Madrid. ninkii Luis Suarez ahaa oo ganaax ugu baxay Miami waxaa leeyahay 6 kulan ayaa la ganaaxay kadib cantuuf iyo caayo iskugu dare staafkii naadiga u baxayeen finaalkii oo ayaan hore ay dheelayeen. marka 6 kulan ayaa la ganaaxay, wax walba markan waa isku dhamaaday. Arsenal ayaa waxaa la hadalhayaa in ku dhawaad Arteta uu bixiyay 1 bilyan ayaa leeyahay ayuu suuq ku qarir gareeyay, keliyana wuxuu qaaday 1 koob weyn oo ah FA Cup. marka waxaas wax la sheegi kar miya walaalkeygiyo. waxaa leeyahay 2025 ceeb ayay ku jiraan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. 2025 waxaa tiriga ma ay dhalin oo yaa bish 9aad la sii marooy. marka waa arki doonaa haddii warka markay maqlaan wax ay shashaabsan karaan. inkastoo Lionel Messi uu dheeli doono sanadkan oo dhan la dhihi karaa laakiin hat-trick waxaa laga fili karaa Cristiano Ronaldo oo caaba xataa dheeloy inaba caadi maahan. wax wal markaan waxay noqdeen hayaacdo hadka dhexe ee ugu fiican qaaradda Yurub iyo dhammaan adduunka ayaa leeyahay waxaa haysto xulka qaranka Spain. marka la eego kubadheynta dhiibka iyo dhaqaaqa markii la isku fiiriyo waxaa leeyahay booska Sayo waxay u haystaan Spain Rodri, halka booska kubad abuuritaanka ay u haystaan ninkii Pedri ahaa, halka Olmo lagu sadexiyo asigana gool dhaliye iyo jiido iskugu jiro inaba caadi maan. marka ninkii Erling Braut Haaland ahaa oo asigana aad iyo aad loo hadalhayo maadaama xulkiisa uu ciyaaray 44 kulan meeqoo dhali karaya kula tahay 43 gool ayuu dhaliyay, 4 caabi ayuu ka Norway. naadiga Manchester City bisan waa ogeen ayaan hore in 100 kulan oo dheelay 88 gool oo dhalay. war Haaland waa mission gooleed, ninka hadli kar miyaa jiro, faraha ka qaada ninkaas. ninkii u baahan waa dacaydey karaa laakiin waxba kama bedeli karo. ninkaas waa ku daayay. Haaland waa xidig inaba caadi ahayn oo macquul gal ahayn markuu dheelayo garoonka iyo markuu ka baxsan yahabo. ninkaas hayaacdo. ninkaas shabaq waa aragteen, banooni qaldamo banaanka inuu ka helo iskaaga tola. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah 2 ciyaaryahan ayaa 5 horyaal ee Yurub ka sameysay ayaa leeyahay 55 iyo wax ka badan oo baas saxan ah ciyaaryahanka saddexaad ee ciyaarta. markoo noolaha banooniga darbeenayo ciyaaryahanka saddexaad ee banooniga soo taabtay 55 jeer ayaa laga soo arkay 2 ciyaaryahan bis 5 horyaal qaaradda Yurub. yaabaa labadaas waa Pedri oo 62 jeer sameeyay ciyaaryahanka saddexaad ee banooniga soo taabtay, halka Dean Henderson uu yahay asigana midka labaad ee 58 uu sameeyay. inaba caadi ma Real Madrid iyo Barcelona future-koodan waay. marka wax walba waxay noqdeen labadan hore anigu sii haddana waa ka ninkii Pedri aniga hadlay. intaas ay ku soo gabeynayna muuqaalkeen inta ku kulmeen muuqaalka waxaan yaatay doona sidaas iyo amaano Allah. subscribe, like, share ayaa noo balan. caadi ma janaalkani hal babbi